shirku runtii si wanaagsan oo habsan oo laga hadilmiyay in badan hadilmiyay lagu noqday si wanaagsan looga baaraandegay qodobada ka soo baxayay ayuu u socday waxaana ila tahay arrimo fara badan oo dan weyn ugu jirto wadanka in hadilmiyay laga soo saaray wadanku saynu ogsoonahay arrimo dhibaatooyin fara badan baad moodaa inay ku gadaaman yihiin waqtigana loo baahan yahay in si degan oo hadilmiyay xaqiiqadu ku jirto runtu ay hadilmiyay taabanayo in hadilmiyay loo galo arrimaha sidaas aawadeed baa qodobadii soo baxay runtii ay u taabanayeen waxyaalo fara badan oo wadanka hadilmiyay loo baahan yahay in la isdul taago waxaan rajaynayaa dawladda iyo dadweynaha hadilmiyay Soomaaliland ba inay qodobadaas hadilmiyay si wanaagsan ay u eegaan lagana halka ka soo baxdo yuhuun iyo wada noolaansho iyo wada shaqayn hadilmiyay runtii wadankoo dhan hadilmiyay saameeya arrimaha hadilmiyay la tilmaamay wadanka in hadilmiyay arrimo laga yaabo siyaalo gaara lahaanshaha wadanka iyo hantida wadankaba laga yaabo beela mucayan inay hadilmiyay iyagu u qaateen bada inay iska leeyihiin waxay ila tahay inay qodobadaas si wanaagsan ay u soo jeedinayeen sida kaliya wax ku hagaagi karaan waxa weeyaan wada lahaansho walaalnimo horumar intaas ma lagu gaari karaa waxa la khasbaya ma jirto laakiin si runta in la wada eego danta la wada eego ayaa hadilmiyay meesha ku jirta marka aniga waxay ila tahay qof hadilmiyay wanaaga iyo yuhuun hadilmiyay wadanka doonaya qodobadii la soo hordhigay dadweynaha dhan dadka Soomaaliland dhan ba hadilmiyay loo soo jeediyay dawladdu ka mid tahay waxay ila tahay inaanay hadilmiyay dantu ku jirto in la wada eego si wanaagsan hadilmiyay la isaga fahmo Soomaalidu waxay ku mahmaahdaa hadilmiyay faras biyo waa dulgeyn kartaa laakiin kuma khasbi kartid inuu biyaha cabo laakiin farasku hadduu ooman yahay waxaad og tahay inuu cabayo biyahaas maanta Soomaaliland waxay u ooman tahay cadaalad midnimo iyo hadilmiyay lahaansho la wada yeesho hadilmiyay wadanka ayay u baahan tahay taasaanay u wada ooman tahay in xukunka hayay inaan hayn baa u wada ooman tahay kolkaas aniga waxay ila tahay arrintaasi inay noqon doonto mid hadilmiyay cid waloo doonaysa wadanka horumarkiisa iyo hadilmiyay horumarkiisa u baahan ay hadilmiyay doonaysa inay hadilmiyay aan iska dhagatiri doonin arrintaas wallaahi waa la wada ogsoon yahay oo hadilmiyay beelaan hadilmiyay kolkii shirku hadilmiyay la eego yaa soo iman kara marka hadilmiyay soo jirtay beelaha hadilmiyay la yiri malaha imika hadilmiyay ka qaybgalka ila meeshana hadilmiyay laguma shirayna waxay ahaydun gabagabadii shirka iyo hadilmiyay in la socodsiyo qodobada soo baxaya taasi ma aha hadilmiyay beelaha in la xaajooda hadilmiyay meesha kuma jirto waa wada xaajoodka beelaha Soomaaliland ku nool yaa loo soo jeediyay hadilmiyay qodobada khaasatan dhinaca lahaanshaha oo lagu hadilmiyay hadilmiyay nisbaynayo beelaha qaarkood inay si gaar ah soo haystaan in iyagu iska leeyihiin wadanka oo taladiisa iyo wixii loo baahan yahay ba iyagu iska leeyihiin waxay ila tahay qodobadii waa arkayseen laakiin waa laga maarmaan beelaha dhan inay soo wada yimaadaan wada tashadaan laga wada hadilmiyay xaajoodo sida ugu haboon ee maanta dhibaatooyinka faraha badan ee ku geedaama wadanka hadilmiyay dhinac kasta ka hareereeyay sidii looga bixi lahaa